bay waxay dhaheen cunug yarka ahaa uma soo geli karto hooyadiis, uma imaan karto, naaska ma siin karto, uma soo agmari karto isbitaalkii. aniga ma ogeyn waxaas. xalo waa iska saaxiday, saaka caaniha aabbihiisaan ugu dhiibay. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو دواده channel قيس رحمة وولالكين قيس. walaalayaal waxaan hadda arkay maama Safiyo ilmeynayso aad iyo aad baan u mashquulsanaa beryahan kama warqabin, aad iyo aadna waan ka xumahay runtii ma xiriirinin. maama Safiyo way umushay, cunugay dhashay ayaa loo diiday hadda inay aragto. runtii maama Safiyo channelkeeda mar walba waxaan isku dayaa inaan fiirsanin, sababtuna ma aha naceebka aan ayada u qabo, laakiin waxaan isleeyahay iyada oo ooyeyso ama ilmeynayso amaad aragtaa ayaan isleeyahay aad iyo aad baan runtii ka xumaadaa markaan arko iyadoo ilmeynayso, ilmo ayaa iga soo istaagto. marka sidaa darteed waxaan islahaa amaad la kulantaa iyadoo ilmeynayso. maanta ayay igu dhacday, ilaahay iguma ogo, meel kale kama maqlin, channelkeeda un baan fiiriyey, waxaan arkay iyadoo ilmeynayso. runtii aad iyo aad baan ka xumahay maama Safiyo waxa kugu dhacay. culayska Allah ka dulqaado. fadlan gaari ayaad wadaa, waa hooyo umul ah hadday umushay, wajigeeda suu u bararsan yahay iyadoo umul ah oo laga rabo inay hadda nasato oo cunugeeda isbarbar jiifiso, maaragtay sidaasi ku nasato ayay saan ka daba wareegaysaa hosbitaalka iyo maxkamadda. ilaahay culayskana ka dulqaado. waxaad isku daydaa inaad qalbigaaga adkeysatid, inaad iska samirtid. fasbiruu inaad iska samirtid ayaan insha allahu tacaala kaa codsanayaa. gaarigan aad saaran tahay, gaariyaad wadaa, xawaaro sarreeyaad ku socotaa, waad ilmeynaysaa, wax ma arkaysid, hortaada ma arki kartid, hooyaad tahay, qalbigaaga oo dhanaa bedelan, qof caadi hadda ma tihid. fadlan gaariga aad wadaysid iska daa, haddaad awoodi kartid tagsi qaado ama uber qaado ama qof kale oo ku wada raadso. gaariga ha wadin, naftaada ayaa wax walba ka muhiimsan. ilmahaaga way ku soo laabanayaan, dhibaatada waa laga baxayaa, ilmo waad helaysaa, waxaan la heli karin waa naftaada. maama Safiyo intaas ayaan ku leeyahay. walaalahii i daawanayana waxaan idinka codsanayaa bal u soo duceeya maama Safiyo, u soo duceeya walaalayaal. maama Safiyo dhibaato weyn ayaa haysato, waa midaan ka cabsanayna ama aan ka baqaynay intay umulin ka hor. maxaa dhici doona markay umusho? ilmaha ma laga qaadan doonaa, ma loo diidi doonaa? arrimahan ka welweli jiray ayaa maanta haysto. anigu hadal ku dheeraani maama Safiyo aan idinku soo wareejiyo, una soo duceeya fadlan. aad iyo aad baad mahadsantihiin. asalaamu calaykum soomaaliya, soo dhawaada walaalayaal. alxamdulilah calaa kulli xaal. iska fiicanahay alxamdulilah. ilaahay baan leenahay, ilaahay yaa noo boogadhayo, dhibkana ilaahay dheefa noogu bedelo. maxaa dhacday saaka ma fiicni, alxamdulilah aan fiicnaan doonaa, laakiin waxaa dhacday amare waxay ku soo saareen shal markaan ka soo baxay kabacdi, markaan isbitaalka ka soo baxay kabacdi bay waxay dhaheen cunug yarka ahaa uma soo geli karto hooyadiis, uma imaan karto, naaska ma siin karto, uma soo agmari karto isbitaalkii. aniga ma ogeyn waxaas. xalo waa iska saaxiday, saaka caaniha aabbihiisaan ugu dhiibay. kuwaan inaan fasax ka qaatay ahaydaan soo aaday, caanihi aabbihiisaan ugu dhiibay, aan soo baxay, halkaanaa imaaday. waxay igu dhaheen fasax kuma siinayno oo waqtiga ka saacadaha sheeg, maxay kala kara wadar, waxaas igu wareeriyeen. bes isla markii haddana waxaa dhacday
amarkii shalay soo baxay bay ogaadeen haddana waxay igu dhaheen stationka ma ka bixi kartid ba meesha saldhigaan joogay saldhigga ma ka bixi kartid halkaan aad joogaysaa halkaan waa inaa fadhidaa bay igu dhaheen kama bixi kartid gurigaadii xataa uma noqon kartid waayahaan dhahe meeshaan iska fadhiyey haddana amar baa soo baxaya dhaheen sug way ii soo noqdeen waxay igu dhaheen baaskaagan waa lagu abruuf garaynayaa amarna waxaan ka sugaynaa dowladda iyo amarka soo saarayso amarka dowladda soo saaraysa sug amarka dowladda soo saaraysa sug haddana waan sugay meeshaan iska fadhiyey amarkii shalay waxay ku qaadayaan amar kaloo ay ku qaadayaan bay soo saareen haddana shalay waxay dhaheen sooma ay geli karto hadda warqad waxay i soo siiyeen haddana way geli kartaa waxaa dhici karta oo dhib hoo jira in kuwaana ay warqadii dhaheen qaado warqadaada qaado oo waan kuu abruufne kuwa isbitaalkane aan lala hadlin kuwii ninkii wuxuu igu dhahay ifasaxay ma ogi aniga warqadaas amarkaas oo warqadaahoo yaalla albaabka isbitaalka laakiin warqadaan qaado waan kuu abruufanay in aad cunuga soo booqan kartid bal markaan isbitaalka tago waxaa la yidhaha waan arkay saaka ballantii isbitaalka kale aan lahaa waa ka baaqday galabta waxaan ballan la leeyahay 3 galabnimo qolada caruurta u tagayaa bal waxa ay yiraahdeen arkayaa iyo adowna waxa wacaya looyarkaygii waa biisi baa la sheegayaa oo hadda waxa wax wada waa ninkii oo madaxda ka ahaa dambiyada oo la yiri dadka asaga amarkana qaadi kara asagana qofka amarka ku soo roogi kara asana ka qaadi kara ninkaas waay hadda waxa amarna mar isaaray amar culus marna mid kale iga qaaday kii aan haysto iga qaaday marna ku kale isaaray anigu lama hadli karaa la yiri kaas oo ninka state ku shaqeeya ilaahay baan kale answer ka sugaya inuu gaarka miskiinka xalkiisa rabin inaan ogaado rabaa ma ogi wax ay sameynayaan ilaahay baan leeyahay in waa in illaahi kariim